عشق فشق mid kamid ah aflaamta jacaylka saddex geesoodka kuwooda ugu wanaagsan ay sameeyaan Bollywood kan waa filimkii uu ku soo caan jiray gacanka ay Shahid Kapoor hadda waxaan idin la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimkan balse intaan u gudagelin muuqaalkayga aan ka codsanaynaa channel ku soo birto muuqaalka dadka ee shalaag inoo saar si share gareeyo labada asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal filimkan Ishq Fishqi waa mid kamid ah aflaamta jacaylka ee saddex geesoodka kuwooda loogu jecel yahay daawashadiisa waana filimkii ugu horeeyay ku soo caan jiray gacanka Shahid Kapoor filimkan waxa uu soo baxay markii la eego 9kii May sanadii 2003 waxaan hogaamiyalka ahaan Shahid Kapoor Amrit Taro Shehnaaz Tarzwal gabadha lagu magacaabo sidoo kale filimkan waxa qayb ka ah jilaaga lagu magacaabo Vishal Malhotra waana jilaaga doorka saxaaftinimada kula jilaaga jilaaga lagu magacaabo Shahid Kapoor marka ayna filimkan natiijahan waa film average ama film guuleystay sheeka aan waa film yani jacayl saddex geesood ah Amrit Taro filimkan magaca Bayal ku jilaysa waxay jacayl xad daaf u qaadaysa Shahid Kapoor isla soo koreen waliba isku kala jihiin laakiin uma sheeganayso kulaaj waxa ku soo biirayso gabadha lagu magacaabo Shehnaaz oo iyadana filimkan doorka atriishnimada ku jilayso laakiin Shahid Kapoor waxa uu jecelaanaha gabadha lagu magacaabo Shehnaaz waxaana yani Shehnaaz waa gabadha ugu quruxda badan marka la eego kulaajka xil waqtigaasi laakiin Amrit Taro uma sheeganayso jacaylkeeda waxa uu jilaaga lagu magacaabo Vishal Malhotra in gabadhan ay zayd u jeceshahay Shahid Kapoor laakiin Shahid Kapoor mar walba ninkan warkiisa maqli maayo alxasil si walba uu xumeynay gabadha Shahid Kapoor yani Amrit Taro ninka lagu magacaabo Shahid Kapoor ay u dul qaadanayso markii dambe go'aan waxay gaari inay ka tagto ama ay ka dheeraato laakiin markii dambe uu ogaanaa in jacaylka uu qabta Amrit uu ahaa jacayl dhab ah sidaas darteed uu soo laabanaa oo raali gelina saaxiibayaal marka la eego gabadha lagu magacaabo Shehnaaz iyada naftigeeda way ka warqabtaa in Amrit ay jeceshahay iyadana uu timid waxay go'aansanaysaa inay iskaga harto labadooda isku dhaafto sheekada filimkaasna waa intaas oo kaliya inkastoo filimku uu fan u leeyahay yani oo filim aad u xiiso badan u yahay sheeka ahaan iyo qaab jilinkiisa sidoo kale filimka waxa ku jira jilaal lagu magacaabo Yash Tango oo yani fatalaha filimkan ayaa lagu tilmaami karaa markaan eegno filimkan sidoo kale xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay hal iyo laba ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal filimkan waxa la leeyahay waa filimkii ugu horeeyay uu sameeyay jilaaga lagu magacaabo Shahid Kapoor ka hor filimkan wuxuu ka tirsanaa jiray group dancers ah sidoo kale xaqiiqooyinka filimkan laga diiwaan galiyay waxa kamid ah waxa la leeyahay filimkan markii hore magaciisa wuxuu ahaa Ishq Fishqi Pyar Pyar laakiin maadaama uu jiray filim kale oo filimkan ka horeeyay asagana lagu magacaabo Dil Vil Pyar Pyar sidaas darteed magaca filimkan waa la soo gaabiyay waxa laga dhigay oo kaliya Ishq Fishqi xaqiiqada ugu dambaysa ee filimkan aan kala wadaagi doono waxa weeyaan atiishada doorka filimkan ku dishay hooyada Shahid Kapoor ee lagu magacaabo Neelam Azam waxa la leeyahay nolosha dhabta markay timaadana waa hooyada dhashay jilaaga lagu magacaabo Shahid Kapoor haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinka aan kala wadaagay filimka caanka ah ee Ishq Fishqi fadlan hadda adkaysh muuqaalka laag inoo saar si share gareeyo labada asxaabtaada aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena